السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي نازلين بيوتي channel ku xiran kusoo dhawaada maanta halkan waxaa rabaa inaan ku sameysano chicken legs oo anaga fooran geli rabo waaye insha Allah kasaa ujeedaan hadda chicken wax 5 xabo chicken inta ku haystaa oo lugu ah waan soo jeexay sida ujeedaanbo waana soo dhaqay haddana ujeedaan halkaas waxaa ku haystaa bacdana ku soo ridinayaa insha Allah isku soo noqoneena halkaas bacdiya ku soo ritay bacda markaa ku soo ritay bacdana rabaa inaan ku qasto ma fahmin wax spiceskeeda wixii aan ku dardaro kadib halkan waxa ku haystaa waa jeex liin dhanaan ku soo miirayaa iyo wax yar cusbo ku soo darayaa cusbo liin dhanaan markaa ku soo daro haddana spiceskeena ku soo darayaa insha Allah ila socda halkan waxa ku haystaa cumin powder oo qaanda hal qaande qaandada yarta waaye tii cuntada lagu cunaa maamida ka sii yareed waa insha Allah haddana waa kaasa waxa ku soo darsanayaa waa coriander powder kadib waxa ku soo darayaa maraq digaag waa maraq digaag oo nooc kale waa insha Allah anaan tusin doono waxa ku soo darsanayaa waa curry powder qaandada halfkeeda iyo huruud yar ku soo darsanayaa haddana waxa ku soo darayaa basbaas gaduud basbaaska budada oo gaduudka waaye daarad basbaas iska deyn kartaa kadib halkan waxa ku haystaa waa raqayaan macaan iyo dhanaan isku jiro waa sajal waaye hadda ka hor abniitsiyay fiyaasheeda hore haddana waan tusinayaa insha Allah supermarket ayaa laga helaa qaandadaas iyo barkeeda ku soo daray kadib haddana waxa ku soo shubayaa waa saliid marka ujeedaa marka wax kasta isku soo darnay bacda afka ka xireena insha Allah si fiican hadda marka isku dhex gelinayna ujeedaan gacmaaga hadhow xawaaji la dhama ka soo arfay ma fahmino marka kaasa ujeedaan adi 2 maalin chicken taan rabnaa inay noo qasnaato fridgeerkan gelinayna insha Allah 2 maalin markay qasnaato caadi ma ahan aan ku dhahay chicken macaan dhanaan ku soo bixaysa try gray insha Allah waa ka heli doontaa haddana fridge-kan gelinayna oo isku soo noqonayna insha Allah after 2 days waa kaasa hay chicken teena dhiiqa caadi ahayn inoo noqotay ku dhab xir dhacaan ay dhashay biyo daada ujeedin markiiba ujeedin biyo ku darin dhacaankan dhan ayada dhashay haddana waa kaasa bacdan ka furayna insha Allah waa arki doontiin chicken keena sida noo noqday halkaas hay ujeedin marka bacda ka soo bixinayna saxankan waxa ku haystaa saxanka oven ku kulgeli lahay saliid aan soo mariyay saxankan ku soo safaaya insha Allah soo noqonayna halkaas u jeedana u maleynaya marka 3 xab inta soo saarnay saxanka yaray saxan kaleetan 2 xab aan soo saarnay waa kaas u jeedana u maleynaya caadi xawaajidi kulli si fiican isku dhex galeen haddana waxa kor ugu soo shushubi lahay aan tusinaya marka ujeedana umaleyna seasoning ka saxaga ku haysta Italian seasoning herbs mint aan ku haysta waa xaga insha Allah waa kaasa ujeedaan haddana kor ugu soo shushuwaya insha Allah soo dhameysana haddana dhacaankii oo daaydi oo bacda ku haray akor wax yar ugu soo shushuwaya sida ujeedaan wax yar dhacaanka daaydi oo doorada dhashay ka soo dhex bixinayay bacda ay ku hareen akor saan ugu soo shushuwaya kadib saliid yar akor ugu soo shuwaya kasana la socda hadda marka chicken keena diyaar waaye qaybtaana sidii sidaan oo kale ayadana u soo yeelay koranka ugu soo shubin isla wixii 4 shay isticmaalay leeyahay haddana waa kaasa oven-kan gelinaya insha Allah isku soo noqonayna waa kaasa hay ujeedaan chicken teena caadi ma aanan ku dhahay wax mis wax dhacaan leh ma lahan ku dhahay wax sida waxa u maleynaysaa inoo saliid lagu dubo kale saliidan dubitaanka saliidan sidaan ayaa ka macaan badan aan ku dhahay insha Allah waa ka heli doontaa wax saliidna ma lahan qoyaana ma ahan ceeriina ma ahan waa ujeedaan sida u bislaatay dhanaan aan caadi ahayn waa ku dhaceesha ku cuni kartaa bariis cad ku cuni kartaa sida aad jeceshahay haddaan ugu cusub tahay please subscribe noo saar haddaan la joogtayna comment like
una sii sheegaray asxaabtaada kaleete insha allah. waxaan filayaa inaad videogan quruxda badan aad ka heshaan dhammaantiina. halkaasahay chicken caadi ahayn waa keligiisa taa waa cuni kartaan ku dheh ma fahmino. halkaasahay kusoo tuurahe sidoo oo quruxda badan oo guduudka ugu soo baxin waa ujeedaan. haddana sidaas iyo nabadgelyo.